Isaias Afwerki madaxweynaha waddanka Eritrea ayaa barqanimadii Khamiista 13 Diseembar 2018 isaga iyo wafdi uu hogaaminayo waxa diyaaradii waday soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan oo ay dawladda Soomaaliya ugu diyaarisay hamaamu soo dhaweyn aad u sareeya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii dhigiisa Eritrea Isaias Afwerki uu ka soo dhaadhacay diyaaradii siday uu si diran ugu soo dhaweeyay garoonka iyadoo kadibna loo dhaqaaqay barta loo diyaariyay salaan sharafta labada madaxweyne oo ay ku diyaarsanayeen ciidamada baanda muusikada xoogga dalka iyo kuwa booliiska. sidoo kale golayaasha dawladda maamulka gobolka Banaadir iyo kooxaha hidaha iyo dhaqanka ayaa u diyaarsanaa soo dhaweynta Isaias Afwerki oo ay ahayd markii ugu horeysay oo uu yimaado Soomaaliya oo ah mid kamid ah dalalkii halgankii Eritrea ay ku doonaysay inay ku gaarto halka ay maanta joogtay isgarab taagay. wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda dalkiisa Ismaan Saalax Maxamed iyo la taliye sare Yamana ayaa loo soo galbiyay madaxtooyada Soomaaliya halkaas oo kulankii koobaad ay ku wada qaateen labada dhinac. waxaan booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho madaxweynaha dawladda walaalanaha Eritrea mudane Isaias Afwerki iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ay kamid yihiin wasiirro iyo la taliyaal. booqashadaasna waxay ka jawaabaysaa booqashadii rasmiga ahayd uu ku tagay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo magaalada Asmara oo kadibna uu u gudbiyay in martiqaad rasmi ah in madaxweyne Afwerki uu ku yimaado magaalada Muqdisho. booqashadaasna waxay qaadanaysaa muddo 2 maalmood soo dhaweyn aad u heer sareysa ayaa loo fidiyay madaxweynaha iyo wafdigiisa. markaas kadibna waxaa loo soo galbiyay villa Soomaaliya oo ku wada galeen wada hadal labada wafdi iyo labada madaxweyneba. haddana martisoorka kadib haddii la yiraahdo waxay ka wada hadli doonaan xiriirka labada wadan hadda la aasaasay sidii loo soo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee labada shacbi Eritrea iyo Soomaaliya oo taariikhiga ah sidii Soomaaliya ay ugu soo dhaweetay Eritrea markii ay gobonnimadoonka ahayd sida uga kalmaysayba. marka iyo hadda furfurnaanta cusub oo ku timid gobolka Geeska Afrika. socdaalka madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo ku saleysnaa muujinta xiriirka wanaagsan ee mar kale ay salka u dhigeen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa socdaalkiisa oo qaatay 2 maalin waxaa Muqdisho loogu sameeyay habeen u gaar ah maamuuska madaxweynaha Eritrea oo ugu talagalay dhigiisa waddanka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo habeenkaas loogu talagalay in hidaha iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed lagu weynaysiiyo taasoo soo jeedatay wafdigii dawladda Eritrea ee Muqdisho yimid. kooxaha kala duwan ee fanaaniinta Soomaaliyeed oo ay horkacisay kooxda ciidanka xoogga dalka ee Horseed ayaa soo bandhigtay suugaan kala duwan oo ay ku cabirayeen xiriirka soo jireenka ay ka dhaxeeya shucuubta dalalka Soomaaliya iyo Eritrea. waxay ahayd hees aad u bedeshay muuqaalka wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne Isaias Afwerki waayo waxa ay ka hadlaysay Soomaaliya inaanay marnaba Eritrea ku eegan dhibkii ay soo martay oo ay la qaybsatay xanuunkii. waxay ka ilmeysiisay madaxdii Eritrea ee goobta fadhisay oo uu ka mid ahaa madaxweynaha dalkaas oo si halhaleel isu taagay masraxa si kooxdaas ugu muujiyay sida fariintooda u taabatay. inta wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha Eritrea ay ku sugnaayeen Muqdisho waxa ay kulamo kala duwan
kula yeesheen xarunta madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda kuwaas oo looga hadlay arrimo quseeya aayaha labada shacab Soomaaliya iyo Eritrea waxaana ugu dambeyn warmartiyood laga soo saaray lagu soo koobay nuxurka wada hadaladii dhexmaray labada dowladood warmartiyeedka wadajirka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Eritrea mudane Isaias Afwerki waxay kulamo wada tashi ah oo 2 maalmood socday 13 iyo 14 bishan December ee 2018 ku yeesheen magaalada Muqdisho Soomaaliya labada madaxweyne waxay wada hadaladooda ku yeesheen Villa Soomaaliya waxayna ku heshiiyeen inay xoojiyaan xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyada oo si dhow la isaga kaashanaya dhammaan dhinacyada danta u ah labada dal sida ganacsiga maalgashiga iyo xiriirka tooska ah ee labada shacab madaxweynayaashu waxay ka dhawaajiyeen sida ay uga go'an tahay in la dardar geliyo iskaashiga geeska Afrika iyada oo xoog la saarayo iskaashiga heer gobol ee dhinacyada horumarka horusocodka iyo barwaaqada madaxweyne Isaias waxa uu bogaadinayaa soo dhaweynayaa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu dhisayo laguna tayeynayo hay'ado amni oo ay Soomaalidu leedahay kuwaas oo awood u leh in ay damaanad qaadaan nabadda iyo amniga dadka Soomaaliyeed ay astaahilaan iyaga oo si buuxda u garowsan baahida loo qabo in la helo hanaan lagula tacaalo halista casriga ee argagixisada iyo saboolnimada labada madaxweyne waxa ay ku heshiiyeen inay sii wadaan abuuridda iskaashi xoogan oo dan u ah labada wadan iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika labada madaxweyne waxay isla qireen inay jiraan caqabado badan oo ay tahay inay si wada jir ah xal ugu raadiyaan sidoo kale waxay ku heshiiyeen in ay mideeyaan taageeradooda iyo dadaalkooda wada jirka ah si loo xalliyo caqabadaha ay labada wadan si gaar ah iyo si guud ahaanba u wajahayaan madaxdu waxay isla garteen in iskaashi heer gobol oo waxtar leh uu muhiim u yahay ka gudubka dhibaatooyinka nabad la'aanta argagixisada saboolnimada iyo xaalufka deegaanka ee uu gobolku wajahayo labada madaxweyne waxay garowsan yihiin in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay dan ugu jirto shacabka Soomaaliyeed iyo gobolka guud ahaan isku day kasta oo lagu carqaladeynayo dardarta ka socota gobolka waxay shakil aan curiyaaminaysaa horumarka Soomaaliya ee ka sameynayso dhinacyada nabadda iyo dib u heshiisiinta madaxdu waxay ka midaysan yihiin ka hortagga faafinta xog kasta oo halis ah raad aan lahayn siyaasadina dabada ka riixayso waxayna dhammaan ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya intaas kadib waxaa soo gabagaboobay booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha waddanka Eritrea wafdigiisu ay ku joogeen Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan oo ahayd markii hore halka ay soo caga dhigatay diyaaradii wafdigan siday ayaa waxaa ku sii sagootiyay madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyadoo mar kale wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne Isaias Afwerki lagu sagootiyay hab maamuus sare